madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ayaa soo saaray cunaqabatayn cusub oo lagu soo rogi karo dawladda Kenya. Madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa soo saaray cunaqabatayn culus oo lagu soo rogo dawladda Kenya si Soomaaliya ay uga argoosato tillaabooyinkii hore ay Kenya u qaaday. Waxaa sidoo kale la soo saaray amarro magaalada Nairobi looga rarayo hay'ado badan oo taageero Soomaaliya isla markaana dawladda Kenya dhaqaale badan ay ka hesho. Ujeedka amarradan ay bixiyaan madaxda sare ee Soomaaliya ayaa ah in Kenya ay dhumiso dhaqaale badan oo ay ka hesho hay'adaha Soomaaliya taageera kuwaas oo badan hay'adaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo sidoo kale xafiisyada dalalka reer Yurub ee ku yaala magaalada Nairobi. Waxay madaxda qaranka Soomaaliya ay soo saareen in dhammaan xafiisyada laga taageero Soomaaliya ee ku yaala magaalada Nairobi in loo raro magaalooyinka Kigali, Addis Ababa iyo Kampala oo ah xarunta waddanka Uganda. Halkaas waxaa looga dan leeyahay in Kenya ay weydo malaayiin lacag ah oo ka soo geli jirtay hay'adaha jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa xafiisyada reer Yurub iyo sidoo kale dawlado badan oo taageera Soomaaliya isla markaana wixii ka dambeeyay burburkii Soomaaliya ka howlgalayay magaalada Nairobi. Madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dawladaha Rwanda, Itoobiya iyo sidoo kale Uganda waxa ay kala hadleen in la xoojiyo xiriirka saddexdaas waddan kala dhaxeeya Soomaaliya si xarumahaasi loogu helo goobo ay si caadi ah uga howlgalaan. Waxa qorshuhu yahay in muwaadiniinta Soomaaliyeed adeegyada xafiisyadaasi ay u doonan jireen in xilligan wixii ka dambeeya ay u doontaan magaalooyinka Addis Ababa, Kigali iyo Kampala. Dhinaca kale dawladda Kenya ayaa walaac xooggan waxa ay ka qabtaa xilligan xiriirka Soomaaliya ay xilligan doonayso inay la samayso wadamo badan oo ka tirsan gobolka. Kenya waxa ay walaac xooggan xilligan ka qabtaa si jiritaanka xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea oo wali Soomaaliya ay la leedahay xiriir xooggan. Sidoo kale Kenya waxay walwal xooggan ka qabtaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga u dhaxeeya. Mas'uuliyiinta Soomaaliya dhinaca kale waxay qorsheynayaan in guud ahaanba meesha laga saaro lacagaha badan ee Kenya ay ka hesho Soomaaliya. Tillaabada kale ee la saadaalinayo inay qaadaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ah in la joojiyo diyaaradaha qaadka ka keena dalka Kenya kuwaas oo lacago kumanaan iyo malaayiin gaaraya intaba ka xambaara Soomaaliya. Dhinaca kale dawladda federaalku waxay doonaysaa in ay meesha ka saarto dhuxusha laga dhoofiyo magaalada Kismaayo oo dawladda Kenya ay dhaqaale badan ka hesho. Dagaal dhinaca dhaqaalaha ayaa Soomaaliya waxa ay doonaysaa inay kaga argoosato waddanka Kenya oo asagu goor hore u bilaabay dagaal dhinaca diblomaasiyadda ah oo ay ku bartilmaameysatay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya.